ninkan ayaa ciida ka qoday god qoto dheer isaga oo ku dhuuntay gudaha. markii gaari lacag ka buuxdo halkaas marayay, ilaalada ayaa indhahooda ku qabtay tuuladii ciida ee si aan caadi ahayn jidka u taalay. labadooduba shaki ayay ka qaadeen. waxay bilaabeen inay kaamirooyinka saqafka saaran ku eegaan hareeraha, balse wax dhaqdhaqaaq ah ma aysan arkin. markii wax muuqan waayeen, darawalku wuxuu isku dayay inuu gaariga hore u wado. laakiin isla markii taayirku galay tuulada ciida, gaarigii halkaas ayuu ku xayirmay. darawalku dhowr jeer ayuu isku dayay, balse xitaa hal inji hore uma dhaqaaqin. intaasi socotay, ninkii ciida ku dhuumanayay ayaa fursad arkay, wuxuuna xabad ku dhuftay taayirka. taayirkiina wuu dilaacay. ilaaladii argagax ayay galeen, waxayna bilaabeen inay si degdeg ah rasaas u ridaan, balse wax yar kadib rasaastoodii way dhammaatay. mid ka mid ah ilaalada ayaa isla markiiba wacay xafiiska isagoo sheegay in la weeraray. isla waqtigaas tuug kale ayaa dab qabadsiiyey qaybta hore ee gaariga. si ay naftooda u badbaadiyaan, labada ilaalo waxay ka degeen gaariga oo ay carareen, balse toogta buur ka dambaysay ku dhuumanayay ayaa labadoodaba toogtay. tuugadii markaas waqti ma lumin, si xawli ah ayay u bedeleen taayirka. hawshuna 1 daqiiqo gudahood ayay ku dhammaatay. kadib waxay ciida ka soo saareen saxan bir ah oo hore loogu qariyey, waxayna dhigeen hortiisa taayirka. iyagoo kaashanaya saxankaas, gaarigii si fudud ayuu ciida uga soo baxay. markaas waxay ku rideen god ciid ah oo hoostiisa hore loo diyaariyey, dabadeedna ciid ayay ku qariyeen. wax yar kadib, helikobtar ayaa timid, waxayna gebi ahaanba tirtirtay raadkii taayirada. muddo yar kadib, booliis tiro badan ayaa goobta soo gaaray. waxayna hareereeyeen aaga oo dhan, baaritaan adagna bilaabeen. laakiin dadaal kasta oo ay sameeyeen, ma aysan helin gaarigii lacagta ka buuxday. milkiilaha ayaa si joogto ah u weydiinayay, ugu dambayn xaggee gaarigu aaday. iyagu xitaa ma aysan ogeyn in si toos ah hoostooda meesha ay taagnaayeen gaarigaas. haddaa inta soo gaartay ku sali nabiga sallallahu calayhi wasallam, fadlan sabiskareeb saar gambaleelkana furu. mahadsanid.